kadib dhacdadii foosha xumeed ee xasuuqa loogu geystay muslimiin ku cibaadeysanaysa masjid ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa waxaa soo islaamay laacib weyn oo caan ah oo u ciyaara xulka qaranka New Zealand ee rugbyga. Ofa Tuangazavi oo asal ahaan kasoo jeeda Tongo ayaa soo islaamay kadib markii uu booqday cisbitaallo ay ku jireen muslimiintii kasoo badbaaday xasuuqii jimcihii loogu geystay masjid ay ku cibaadeysanayeen. Sonny Bill Williams oo isna ka tirsan xulka qaranka New Zealand ee rugby oo haysta diinta islaamka ayaa aad ugu farxay inay soo islaamtay hooyadii. John Compton oo arrimo bini'aadanimo u jooga dalkaasi ayaa arrintan farxadda leh ku shaaciyay boggiisa Facebook iyo Twitter-ka. Allahu Akbar, maanta waxaa soo islaamay oo diinta islaamka qaatay Sonny Bill Williams hooyadii iyo weliba saaxiibkii ay isku kooxda yihiin ee Ova. Ilaaha u fududeeyo jannatul firdawsna Allaha ugu deeqo. Aamiin.